السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد ماسنتين داوديال next nagala socotiin waa channelkayga Maskax Maal. maanta waxaan ka sheekeyn doonaa Genghis Khan inta aynan ka sheekeyn kusoo dhawo channelka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada daawadayaal mar labaad channelkeeni Maskax Maal. maanta waxaynu ka hadli doonaa Genghis Khan wuxuu ahaa hogaamiye kaasoo ka mid ah hogaamiyaasha taariikhda weynaa waqtigii u dhexeysay 1206 ilaa 1228. waxa uu ahaa hogaamiyihii Mongooliga ee Genghis Khan oo qabsaday dhul aad u ballaaran oo lagu qiyaasay 12 milyan oo mayl, kaas aanu hore u samayn hogaamiyaha adduunkan soo maray. waxa uu jeexay waddo aad u dheer xaggaas uu malaayiin qof naftooda ku jafay naftooda ku waayeen. waxay gaadhay boqortooyadiisu bariga Kuuriya ilaa galbeedka Iiraan. waqooyiga waxay gaadhay dhulka siman Serbiya iyadoo koonfurtana gaadhay ilaa badda Shiinaha. hogaamiyihii weynaa ee Mongooliga ee Genghis Khan hadafkiisu ma uu ahayn inuu faafiyo diin, laakiin wuxuu hadafkiisa ugu ballaadhan inuu awoodiisa iyo saqaafadiisa boqortooynimo inuu ballaadhiyo uu weyneeyo. waxa uu ahaa mid ogol in ay dadka diimahooda kala duwan caabudaan. asaasiga boqortooyadii magaciisu waxa uu ahaa Genghis Khan. waxa uu dhashay agagaarka webiga Onon qiyaastii 1162 miilaadiga. magaciisa oo dhammaystiran waxa uu ahaa Timujin oo loola jeedo midkii birta ahaa. Genghis Khan waa magac sharafeed uu hantiyey 1187 miilaadiga kadib markii uu madal ka sheegtay dariiqiisa dhexdiisa inuu ka sheegtay in uu yahay hogaamiye. taariikhyahanadu waxay isku khilaafeen macnaha magaca, laakiin badanaa amba taabacsan wuxuu ahaa mid daneeya dadka muhiimada leh ama taariikhda leh xitaa haddii yihiin cadowgiisa. xilli waqtiyada ka mid ah ayaa waxaa la sheegaa in uu galay dagaal ka dhan ah qabiilka loo yaqaano Taygot, in faraskiisa haleeshay fallaadh. markii uu dhammaaday dagaalkii dadkii la soo qafaashay wuxuu weydiiyey ninkii faraskiisa ku dhuftay fallaadha. kadib ninkii marka uu sheegay waxa uu ku abaalmariyey inuu noqdo ciidan. waliba waxa uu noqday ninkii markii dambe ciidamada kuwa ugu cadcad ee boqorkan taageero ama boqorkan u dhow amba uu jecel yahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddaad ka hesho walaal like, share, subscribe kalena sii gaadho walaal share tiimo badiya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.